maanta anagoo mas-uuliyiin oo reer puntland kasoo jeedna 5 wasiir iyo anoo guddoomiye ku-xigeen ah ka baarlamaanka ayaanu baxnay ilaa iyo 20 qofna waa nala socdeenoo ilaa dad 30 ku dhow aan ahayn marka waxaan u soconnay caana shub suldaankayga oo lagu caana shubayo ayaan u soconnay waxa dhacay de ma aanu ogeyn wax colaad ilaa inta tiro la eg oo dad aan siyaasadna u socon oo deegaankoodii u socda inay tani dhacayso diyaaradii markaanu soo galnay ayaa waxaa nala ku wargeliyey oo nala ku yiri ma bixi kartiin baa nala ku soo yiri oo sidaasaan marka intaydan bixin ma ku wargeliseen in aad soo socotaan wallahi de ciidaanu ku wargelinay oo dadkeennoo na sugayay aan ahayn anigu fasax haddaba maalin dhaweyto annagoo baarlamaanka anoo wada waa tagnay marka dee cid aanu weydiinaynay permission oo aanu dhihi karnay dhaqan baanu kasoo qaybgelaynaa ma jirin mana jirin wax dhib ah oo meeshaas aan nacam ama aan ka jirtay ama kuseen aan qabnay muusan jirin marka ma jirin waxaan wacanay aan dadkeenna ahayn laakiin ma aha soo maaha markii ugu horreysay ee magaalo ka tirsan puntland lagaa celiyo maxay arrintan ku saabsan tahay ama ma waxaa jira khilaaf adiga kaala dhexeeya maamulka puntland anigu anaa reer puntland ah anaa reer garowe ah garowana laygama soo celin ani boosaaso ayaa hadda ka hor deni anoo raashin qaaday dad tabaalaysan u qaaday layga soo celiyey run ahaantii anigu ma garan karo wax kale aan ku qiimeeyo laba dhaqan siyaasadeed oo uu deni ku soo kordhiyey ayaa maanta jira aan ku tilmaami karo midda ah nin weyn oo madaxweyne ah oo 4 milyan oo Soomaaliya mas'uulka dastuurka ku ragga Soomaaliyeed waxay ka xishoon jireen inay gabar Soomaaliyeed ay timaha ku dhagaan ama gogoradooda wax ka dayaane dhaqan horta siyaasadda uu ku soo saaidiyay ayay ahayd ninka la dhaho deni dhaqanka labaad oo siyaasadda deni uu ku soo saaidiyay baa waxay tahay in isaga intuu madaxweyne u orday oo uu hal mar dee ku soo khasaaray inuu ka sasan yahay weli oo cara uu ku maqan yahay maahe wax aniga igala dhaxeeyay ama asaga wax gooniyo iga dhaxeeyay ama deegaankaygii wax dhib ah oo igala dhaxeeyay ma jiro dhaqanka siyaasadeed ee qaabka daran oo aan garanayn meel nacam daawadiisa laga raadiyo baa jiro ma ogiye anigu ma jiro wax aan hadda markii aan ogaa oo aan dhihi karo 30 qof kuma aanu raacneen diyaarad oo mas'uuliyiina 5 wasiir baa ila socday oo reer Puntland marka mayna jirin runtii wax aan isdhahayay reason-kaasaa la idinku soo celinayaa ma garan karo dhaqanka siyaasadeed oo hadda ku soo saa'iday laakiin de maanta waa noognahay xanuunka qof walba siduu uga dabaalan lahaa hadda de ka bacdi waa laga fikri doonaa hadda marka maxaa qorshahaagu yahay Sacdiya ma inaad ku laabato mise absolutely aniga deegaanka Garowe dani uma dhalan madaxweynuhu ka yahay ma ogaya aniga waa deegaankaygii magaalo kale ma lihi intaan aado haddii ay noqoto in ay dhacdo in maanta uu dhaho waqtiga uu leeyahay baan garanayn oo la dhihi karo baan baa idin saarano ilaa iyo timeka laakiin ayaan darro waxa qof kasta oo Soomaaliya ogaa dani inuu darbi walba la taagnaa oo dad qorraxda u dhaabnaayeen oo kaar la qaadanayay oo dimuqraadiyad uu sheeganay mar walba wuxuu ku celinayay dimuqraadiyad ayaan sameynaya maaragtay free vote in codka dadku ay la baxaan xataa haddaan ka fikir duwanahay in uu maanta dhaho diyaaradda la socdo ma soo degi kartaan iyo dimuqraadiyad baan wadaa maanta waxaa loo jeedaa qof kasta oo Soomaali ah in ay waxaas soo baaba'day oo ay awood sheegasho noqoto marka dictatorship sida loola dhaqmo waa la yaqaanaa weygii dictatorshipku hadda bilaabay awood sheegashada markaas waa la arkayaa kol anigu qof dumar aan ahay hub ma wadan weli caado reerka ugu tabaryaro meesha degan baa ka mid ahay reason uu maanta uu ii beegsado markii labaad oo uu ilaa iyo xadka dhaqankayga anoo u socda ii hor istaago hadda waxaan u malaynayaa waali siyaasadeed baa jirta ma ogiye way siyaasadu igaga joojiye deegaankaygii ma jirto marka ma aadi doonto afkorsina aadayo meesha anaa u dhashay haddii aan la dhahayo ilaa iyo 3 bilood 4 bilood baa u hartay tabartiisiyeena haddii ay noqonayso inay dhaawac iyo dhibaato ay imaanaysana waan iska joogayaa laakiin run ahaantii anigu uma jeedo reason maanta la ii soo celiyo aan sababi karo dani meesha uu joogo qofna kama hadli karo waa xira wixii hawada ka fikir duwan ama uu u garto in fikirkiisa aysan raacsanayna hawadu ka celinaya marka dimuqraadiyadu sheeganayaan garanayn ani marka nasiib darrada runtii haysata Puntland waxay tahay
24 سنة جرنا 24 ساعة هوان حرانيا أو ديارة برايفت أو قفل عكسي سموادن وكسر راعي أيان هورس داغيا أرتوا أيان درها يستا لكن داني شلي مركانو فرماتشر أهيني واحد دي دكتاتور باسمين ليسا نيك ugu hadal dheeraabo aha ninka ugu qaylo badnaabo aha maanta marka muxuu ku jawaabayaa oo dhahaya shalay markii kismaayo diyaaradana la ka soo celinay danay isaga ugu qaylo badnaa marka maanta tiisa muxuu ku fasiraya waa markii labaad oo uu timahan haysto oo uu noogu awood sheeganaya isagoo dastuur ku yimid